bulshooyinka ku dhaqan deegaamada Cali Dari Muray Karisiya Hilowle ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay baahida asaasiga ku gadaaman deegaanada ay ku nool yihiin oo ay sheegeen in dugsi ka kooban hal fasal iyo office ay ku suurtageliyeen si iska u qabsaa Hilowle waa soo badan waxa hoos yimaada masdare taqadimi makaris ilay عصبير انت بوصل ماشي انت سوق في هوسبات اما جوابات هوسبات مالهن عافيماد مالهن وحبرشه مالهن يمجران وحبرشه مجرتو اسكول ادر كيسان لبدا ساكدسان انت كلي وا قبيل ادر كيسان دير مالهن دكتور مجرو ودا مجرتو waxaan u baahanahay hay'adaha waxaan uga baahanahay wixii tabartooda inay caawiyaan dawladda tasare iyo tahoose inta dhamaantood waxaan ka rabnaa inay hawsha wax looga baahida taalaalkaas dadkaasi waa dadka imiga dhulka ka haray inay ummadda dadka awlaada wax bartay inay ugu gaarsiiyaan wax loo qabto dawladda Somaliland tahoose iyo tasare wala saabka maayarka لما تبين أنا وحنا ترى أنت كلمة قبل نقطعي والله واحد من ما نقول أقول أنت هذا أصلا يركب وليبيو بالكذي راح تبيها وتقول تقوله وراسين منهن معلم كأرضه وحلقة أنا بقول بتبيه قلت لاش خطرت بجينا أقول تخصص ما حيسمع سهلا إن هالقانون فعلا كان ما عمل سوق المسافر بدون ما يجلس فيه ما دام يتنبه قضية طايفة فكر هرتا بيتي إلى هاي أنا قلنا سيك سنو وحن دورينا وسيرة لها خصيصو وسيرة عافمات ملهي وسيرة برشلة وحكاستين أنا قاعد وحي أثبت أنا قاعد كرونا تاو خصيصو يعيدا خصيصو من أنا قاعد وصفي عن ملقى أنجوبنا أنقو فكان تحساب تبي ملقى أمد إمك أنجوبتو ويا أنا كبير كنت مدي ليلا أنجوبنا كنت مدي mar haddaan konton ku joogno meel alla bay hadal aan gaaraynaaba ma jirto marka waxaan doonaynaa in la soo gaarsiiyo ummadda naga tigtay konton ku joogno reer baadiya waxa la dhaabaan awlaadda inta iyo in saddex goor leeg aad arkaysiin iyo saddex goor leeg ma qura jaahilko iyo mali ama meel ku joogaan ama ceel ku jiraan mali taw mali meel waliya laga qaato maray waxa weeyaan marka waxaan u baahanahay umrisaan u baahanahay hay'ad biyood baan u baahanahay biyo noogu daran macallin baan noogu daran waa aqal meel laga dhisay reer baadiya dhisay reer baadiya wax gaarsiinayna waa la wada garanaya arugu ay orgola oo kacada waxa ay soo direen oo waliba dhaxal loo joogsaday baa lagu iyo ari baa lagu inta kor iyo lagu dhisay baqsada hay'ad wali ma arag waxana hay'adaha ka jira dawladda baa ka jira waxba ka jira nimcooyin baa ka jira lagu yiraahdo anaka ma aragno noo iman wali iyaga shay ko noo weydiin baahi aad u culus baysan taab beero laba iskuul kuna waa halka sidaas uu dhiman yahay sidaas uu u dhanay halka inta dumar ku umusha daryeelka kama jiro waxa weeye umulsada halka ku dhashay dibay ku gaadho baawur halka lagu soo dooro inta أجيرتنا واضح كيسان استخرت دكتور لو طلع أو عفمات وجوها أولاد الجوتا يا أرضين الجوتا واضح كيسان بعيد كجيرتا مقابل كراي واحد ويان سومال لامدوني وحيتقى وطيني أوفيس كاية كلاس كا تبرعاتها waxaa lagu sameeyay intii beesha ka tagtay iyo inta joogta wixii intaalkeeda baa halka lagu soo gaarsiiyay ardayda waxa dhiga maadiga ma hayno caafimaadkii ma hayno barkadii ma hayno kuraasidii galaaska caruurtu ku fariisanaysay ma hayno laba maqsin waa kuwaas oo way dhiman yihiin oo ma hayno waxa weeyaan ardaydaas waa ka arkaysan waxa weeyaan baahida fara badan baa ka jirta imika waxa ka taagan arkaysan waa dugsi hal qola oo ay ardaydu madrasad ahaan wax ugu dhigato iyadoo beesha halkan degta Hilowle ay dugsigani iska wax u qabso halka qol ku dhiseen waxa banaana wadiga arkaya waa laba class iyo subsi baa ka banaan oo la awoodi waayay waxay dadka halkan degani awoodeen
inay iskaa wax u qabso ku keenaan dugsigaa dhan ee halka qola oo labadaa qolna u bannaan yihiin iyadoo ardaydii ilaa hadda kuraas la'aan ay waab halkana u fadhiyaan oo isagana arki doono macallinkii oo ardaydii dhex fadhiya oo waab wax ugu dhigaya iyagoo aan haysan meel ay fadhiistaan waxaa ka dhiman 2 qol oo dhan oo kalaasi ah qaybtan waxaa loo isticmaalay madrasad kalaasi office baa u dhisan ardaydii loogu talagalay in wax lagu dhigo waa kuwan macallinkii uu dhex fadhiya waa macallinkii madrasadda quraanka halkan waa waabkii goobtii ay wax ku baran lahaayeen waxa ay u fadhiisan waayeen waa kuraas la'aan waa ka macallinkii waa ardayda yaryarka tirada badan leed arkaysaan waxaan ka hadaba hay'adaha ay khusayso sida Save Children ama Amoud Foundation hay'adaha deeq bixiyayaasha waxaan ka codsanaynaa horta kow inaan ka helno kuraas ardaydaasi wax loogu dhigo oo lagu xireeyo ayaan ka codsanaynaa hay'adahaas in iyagna soo gaaraan goobtan ay arkaan si kastaba ha ahaatee qayladhaanta bulshada ay imaanaysaa xilli boqolaal da'yar ay baahi u qabaan helitaanka waxbarasho biyo nadiif iyo caafimaad waa maka dooraadan muqbaahiyaha SBC degmada xarada gobolka Silel